Mareykanka ayaa Iiraan ku eedeeyay weerarkii lagu qaaday maraakiibtii mareysay xeebta dalka Imaaraadka. La taliyaha amniga qaranka John Bolton ayaa sheegay in ay tahay wax hubaal ah in Iiraan ay mas'uul ka ahayd weeraro horaantii bishan lagu qaaday maraakiib mareysay xeebta dalka Imaaraadka Carabta. Bolton ayaa warkan warbaahinta ugu sheegay in magaalada Abu Dhabi oo uu u joogo wada hadallo amni oo uu ugu yeeray kuwa muhiim ah oo waqtigoodii ku soo aaday balse ma soo bandhigin wax cadeymo ah. Xiisada ka dhex oogan Iiraan iyo Mareykanka ayaa ka sii daraysa toddobaadyadii la soo dhaafay tan iyo markii madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in uu doonayo in uu meesha ugu hooseyso uu geeyo saliidda Iiraan ay dhoofiso oo uu dhaqaalaha Iiraan uu ku tiirsan yahay. Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Mohammad Javad ayaa Bolton iyo shakhsiyaad kale ku eedeeyay in ay dagaal u ololeynayaan isla markaana maamulka madaxweyne Trump uu filanayo argagixisnimo dhaqaale. Iqra Saciid Xasan Iqra Aragsan warbaahinta Daljir magaalada Boosaaso.